sidaa la socotaan maanta waxaad u jeedaan gudoomiyihii gobolka wasiiradii iyo qofka shacabka ahaaba inay sinaayeen qof walba oo idin kamid iyo idinkaba inaad sinaydeen oo qof walba oo in kamid ah halkaan uu soo galay asagoon wax istaaf oo wata aan la arkin taasi waxay xaqiijinaysaa in qofka muwaadinka iyo gudoomiyuhu gobolka oo maayarka caasimadda muwaadinka koowaad oo caasimadda ahna iyo qofka shacabka ahna inay sinaayeen sidaasoo kale waxaan rajaynaynaa inay degmooyinka gobolka Banaadir 16 degmo ee lagu talagalay in doorashooyinka ka qabsanto inay sida uga qabsanto iyo caasimadda dalka haddii aan nahay hay'adaha booliiska Soomaaliyeed oo kaashanaya hay'adaha ammaanka iyo shacabka Soomaaliyeedba waxaan diyaar u nahay inaan amniga caasimadda iyo diiwaangelinta soddonka bari soconayso inaan amnigooda sugno dadka warxuma tashiilka jecel cadowga iyo aragtidiisa iyo waxa la midkaana waxaan leenahay ka foolajignaada in badan waan ka waanina mar labaad qofkii waana diidana insha Allah taala sharciga iyo qawaaniinta dalka ayaan la wajiidoona sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iideysanayo inaan ka hadlo waayahan waxa socday in dadka qayb ka mid ah dhalinyarada inay u isticmaalaan ay fuse ka raadiyaan iyo saameyn ka raadiyaan iyagoo oo tabinayo warar aan sal xaqiiqa iyo sal iyo baartoona lahayn oo u janjeera inay cadowga garab siinayaan aad moodo waxaan leenahay sideedaba qawaarijtu idinma dhaxayso waa cadow ummadda Soomaaliyeed ujeedkay u socdaana waxay tahay midka wariyaha iyo midka shacabka iyo midka dawladda inay wada dilaan u socdaan namaka cid kala jecel yihiin ma jira amniga caasimadan iyo dalkan iyo dadkan ay diidan yihiin sidaa daraadeed in warkooda ay rabaan inaad tabiso ama ahaaw wariye ama ahaaw shacabe waxaan leenahay dhaxdhaxaadna kama noqon karaysid lagaamana aqbalayo waran sar iyo baartoona lahayn inaad sheegto حرية القول كبوليس كصوماليات حرية القول كإنه إلاليان شرعي يا نظام كدولة إنه إلاليان ديار وين مر والبقية كلا دمبينته